Inter Milan mise Manchester City Kylian Mbappe ayaa saadaal ka bixiyay kooxda Champions League xil ciyaareedkan ku guuleysan karta oo warbixinta aanu ku eegi doono muuqaalkeenan. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe oo lagu arkay munaasabadda Spanish Grand Prix ee ka dhaceysay magaalada Barcelona shalay ayaa saadaaliyay finaalka tartanka Champions League oo aad markaas loo wada sugayo iyadoo waliba finaalkan ay isku hayaan koox markaa ka socota Talyaaniga iyo sidoo kale koox markaas ka socota horyaalka Premier League. Haddaba tartankan ay 10ka bisha June kala qaadi doonaan kooxaha Premier League iyo Serie A ka kala imaanaya ee Manchester City iyo sidoo kale Inter Milan. City ayaa doonaysa in ay markaas UEFA Champions League ku guuleysato markii ugu horeysay taariikhdeeda halka Nerazzurri ay raadinayso koobkoodii afraad ee noocan ah. Kylian Mbappe oo Spanish Grand Prix markaas kula hadlay muqaalbaahiyaha Sky Sport ayaa markaas sheegay in uu filanayo in Manchester City iyo Pep Guardiola ay hanan doonaan tartanka sanadkan. Mar uu markaas aragtidiisa ka dhiibanayay waxa uu markaa sheegay Kylian Mbappe finaalka Champions League wuxuu noqonayaa mid cajiib ah, waan daawan doonaa, waxaan filayaa in Manchester City ay ku guuleysan doonto, ayuu yiri Kylian Mbappe oo la hadlayay Sky Sports. Marka laga yimaado in xil ciyaareed kale oo markaas qalbi jab ah ay markaas kala kulmeen tartanka Champions League kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain, PSG ayaa markaa ku guuleysatay horyaalka Ligue 1 dalka Faransiiska markeedii 11 taariikhda, halka Mbappe qudhiisu mar kale gooldhaliyaha ugu sareeya uu noqday. PSG ayaa markaa la filayaa in isbedel xoogan ay sameyso suuqa kala iibsiga xagaaga ee sanadkan. Waxaa durbaba ka baxay Lionel Messi iyo sidoo kale Sergio Ramos, halka ay qarka markaas u saaran yihiin saxiixa Manuel Ugarte oo markaa kaga soo biiraya kooxda kubadda cagta ee Sporting Lisbon. Haddaba tababar Pep Guardiola iyo wiilashiisu waxa markaasi ay doonayaan sanadkan in ay markaa xaqiijiyaan saddex leyda taariikhiga ah iyadoo waliba ay markaasi rabaan in ay soo barbarayaan rikoorka kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyadoo waliba kooxda kale ee Inter Milan ay iyaduna markaasi doonayso in ay mar kale oo afraad ay ku guuleystaan tartankan. waa kulan markaasi cajiibkiisa ah iyadoo markaa loo fiiriyo labadan kooxood ay midba midka kala doonayso in ay ku guuleysato tartankan, laakiin indhaha mucaashaqiinta kubadda cagta ayaa waxa ay markaasi eegayaan bal mar kale haddii Manchester City oo timid finaalka Champions League ay markaasi ku guuldareysan karto iyo haddii ay qaadi karto. waxaa xusid mudan in markii labaad ay tahay Manchester City inay markaasi soo beegsato finaalka Champions League iyadoo waliba markii ay soo beegsatay kan kiisi ka horreeyay ay la kulmeen kooxda kubadda cagta ee Chelsea. hal gool oo markaasi Kai Havertz uu ka dhaliyay ayaa looga diiray kulanka oo dhan, taasoo ka dhigtay in Chelsea ay markeedii labaad ku guuleysato tartankan xiisaha badan. Manchester City iyo Arsenal ayaa loo arkaa labada kooxood ee waaweyn ee horyaalka Premier League ee aanan wali hanan tartankan Champions League. haddii ay Manchester City ku guuleysato xil ciyaareedkan, Arsenal ayaa waxa ay halka ku noqon doontaa madi, maadaama iyadu kaliya ay markaas noqonayso kooxda kaliya ee Premier League matasha oo markaas ka mid ah 6 kooxood ee ugu waaweyn ee horyaalkan aysan ku guuleysan abid tartankan. 10ka June oo markaa ku beegan maalinka Sabtida ee soo aadan waa maalinka markaasi la kala bixi doono oo indhaha taageerayaasha caalamka meel walba ay joogaan ay qabanayaan kulankan xiisaha badan tartanka Champions League finaalkiisu ah. Manchester City ayaa markeedii ugu horeysay ku guuleysan doonta mise Inter Milan ayaa markeedii afraad markaasi qaadi doonta tartankan. saaxiibayaashu aragtidoodu commentiga ay markaa inoogu reebi karaan, balse waa kulan markaasi cajiibkiisa wata oo markaa ay ku kala baxayaan laba kooxood, koox ay markaasi ay garab istaagi doonaan dhammaanba kooxaha kale ee horyaalkaas ka dhisan ee Talyaaniga. waa kooxda kubadda cagta Inter Milan garab badan ay heli doontaa, laakiin Ingiriiska laguma yaqaano inay isgarbiyaan ama xitaa ay markaasi kulan yeeshaan koor finaalku. la arki doonee Manchester haddii awoodeedu ku qaadi doonto haddii uu nasiibka markaasi ka weecin doono tartankan mar kale.